maadaama aad xeel dheer dhanka waxbarashada aad tahayna sidee xaaladda hadda aan ku jirro iyo deegaan jacaylka la isu dhexgelin karaa waxbarashada iyo deegaanka lagu dhiirigelin lahaa in dhalinyarada iyo qaybta waxbarashada ay ka qayb qaadato kolley dee waxbarashadii markii laga hadlaayo iyo deegaanku maba kala dee socno oo ardaygu wuu baranayaa oo dee curriculumkii iyo ayaa kolley lagu barayaa laakiin inta badan waxyaabaha practicalka ah ama ardaygu inuu u dhowaado deegaanka waxaa qayb ka noqon karaa in la dhexgeliyo deegaankii shaqadii uu dhex galo sida hadda la sheegay deegaankii uu u dhowaado oo dhex tago xoolihii dawaayadii hore dhulku markuu iskuullada la xiro dadku miyiga loo saari jiray oo dadku miyiga aadi jiray inkastoo miyigiiba hadda si magaaloobay oo aan wax hadda isbeddel ku dhacay laakiin marka fasax iskuul la galo dadku waxay aadi jireen miyiga xoolihii bay dhex tegayaan reer miyigii bay dhex tegayaan dhirtii bay dhex tegayaan wax badan oo environmentkii iyo deegaankii bay soo baranayaan laakiin hadda waxaa moodaa marmar dee waa loo baxaa dadku si isxilqaana dhalinyaradu inay meelaha tagaan laakiin inay dhex tagaan deegaanka oo ay u tagaan inay research ku sameeyaan dhibaatada ka jirta iyo waxyaabaha uu u baahan yahay waxay u baahan tahay inay tahay qorshe iyo barnaamij iskuulladu iyo jaamacaduhu ay sameeyaan waana u baahan yihiin ardadu sanadkii mar inay barnaamij ku talagal ah oo qorshaysan oo ujeeddo laga leeyahay in ay ardadu ku aadaan deegaanka lagu soo tusayo dhibaatooyinka deegaanka ka jira waxyaabaha doorka ay ku yeelan karaan deegaanka waxaa ka mid a dee xitaa magaalooyinkeenna aynu degannahay in ay ka muuqato in la dhiraynayo in la qurxinayo wax ka qurux badanina ma jiraan dee waxyaabaha deegaanka aynu ku haysano oo ah dhirta iyo maaragtay biyaha iyo in dhulka maaragtay marka waxaan is leeyahay xagga waxbarashada iyadoo manhajkii iyo curriculumkiina lagu muujinayo dhibaatooyinka ka jira deegaankeena iyo waxyaabaha la rabo in laga qabto iyo faa'iidooyinka cilmu isagoo yar oo dee fasalka koowaad markuu yahay fasalka labaad in la tuso quruxda iyo wanaagga deegaankiisa waxaa muhiim ah in ardadu ay baxaan deegaanada fogfog oo miyiga tagaan oo iskuullada iyo waxbarashadu qayb ka mida laga dhigo iskuulka hadda fogaan waxaan 2005 miyaa ugu horeysay mise 2004 meelahaas waxaan samayn jirnay barnaamijyo uu ka mid yahay in la saaro ardada dalxiis oo kale ama buuraha iyo magaalooyinka kale miyada meelaha ku tagaan ujeedadiisu waxay ahayd inay soo arkaan deegaamada kala duwan iyo waxyaabaha waqti dambe xilli dhulkii nabadgelyadiisii baa siis ka noqotay laakiin meelaha aan geyntina waxa ka mid ah buurta Calmadow oo kale oo deegaanada aad qurux badan runtii oo dalxiiska iyo quruxda iyo dhirta iyo waxyaabaha ka jira marka la soo koobo ahmiyadda deegaankeenu leeyahay waxa ardayga la gaarsiin karaa qorshe waxbarasho baa lagu gaarsiin karaa oo dowladaha iyo maamuladu ay qayb ka yihiin sideedaba waxaynu u baahannahay qof ma qaban karo oo iskuul ma qaban karo oo tiim ma qaban karo gaari laakiin waxaa la rabaa nidaam dawli ah oo dee riixaya inuu jiro oo la dhiirigeliyo oo ardadii lagu tababaro oo waqti ay ku qaataan marka anigu waxaan is leeyahay waxbarashadeena iyo deegaankeenu waa meesha la rabo deegaankuba in laga hagaajiyo oo laga wacyigeliyo dadkii waxay u badan yihiin dad wax baranaya inta badan iskuullada la jooga jaamacadaha la jooga haddaanay war u hayn deegaankoodii dhibaatada ka jirta haddaanay war u hayn faa'iidooyinka deegaanku leeyahay haddii aanay booqan haddaanay research ku samayn hadee ardayda jaamacadaha waxay u badan yihiin dama assignment baa la diraa waxyaabaha xitaa qaybtood in ay deegaanka ay qayb ka noqdaan iyo dhibaatooyinka ka jira waxaan arkayay kolley marka imtixaanada centralizedka la qaadayo luqadaha waxaa jira waxyaaba ardayda la yiraahdo ka hadla oo kale waxaa ka hadal waxaa jira yani qayb ka mid ah inuu ardaygu cabiro mawaadiicda loo diro ardayda waa inay qayb ka noqota ardaygu inuu ka hadlo
darajada ugu badanna waa lagu bixiyaa marka ardayga lagu imtixaamayo secondaryga form 4ka ah maadada Soomaaliga oo kale curiska ku qoran ama kan Ingiriisiga ama Carabiga waxa ujeedadu ma aha inuu luqadii qoro kaliya laakiin mawduuca loo diray la xisaab macna leh marka iyada deegaanka ka hadal iyo dhibaatooyinka ka jira iyo xalka aad u haysid qofkii uu fikiraya markaasuu aadaya marka siyaabahaas ardada iyo waxbarashada iyo la isugu xiri karaa deegaanka haddana de wasaarad gaar ah jirto oo duruufaha hadda ka jira Puntland oo kale wasaaradaha hadda ugu xoogan oo ugu dhaqdhaqaaq badan waa wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada marka maadaama wasaarad gaar ah loo xil saaray waxaa moodaa in si gaar ah loo tixgeliyo caalamkuna hadda uu danaynayaa oo meelaha shaqooyinka badan ka socdaan bay ka mid tahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in waxyaabaha laga hadlayo iyo shaqooyinka runtii aadka badnaa oo ay qabteen hay'adaha adees ka mid ahayd iyo isbedelka hadda laga arkay marka aad ku sii socotid baran oo kale magaalada Digaleeyada waxa ka sokeeya togag baa ka sokeyn jiray tog laga shaqeeyay oo dhowr joor la xiray rogdam lagu sameeyay oo siligii lagu xiray iminka wuxuu soo bedelay doox qofkii ogaa waagii la sameynayay oo haddana arkaa uu garanaya meeshan isbedelka ku dhacay laba tog baa ka socday tog weyn oo gawaarida baana dhaafi jirin oo hadda wuxuu soo bedelay dhul bannaan oo geeda ka baxayaan laba saddex meelood baa laga xiray oo biyihii markaas ciidii soo buuxsantay si tartiib meeshii waxay soo bedeshay meel biyaheedu ay fidaan oo isu bedeshay meel dooxa ah shaqadii laga qabtay way inta in la mid ah ayaa waxa lagu bedeli karaa dalka intiisa kalena oo in ka yar marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ciidana uu maqnaa loo waqooyi oran jiray dhalinyaradu iyaga laga rabaa inay isbedeladaas qayb ka noqdaan nin walba deegaanka uu joogo iyo gobolka uu joogo iyo meesha uu dhow ama ha wacyi geliyo ama ha tago ama wax ka qabto insha Allah saasaan rajaynaynaa waa mahadsantahay